munaasabad ballaaran oo lagu maamusayay caleemasaarka Chief Caaqilka Beesha Bohod Chief Caaqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax ayaa lagu qabtay magaalada Xamilka oo ku taalo koonfurta degmada Ceelafin gobolkaasi Sanaag. munaasabadan oo maqaamkeedu sareeyay ayaa waxay kulmisay badiba hal doorka labeenta bulshada reer Somaliland oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibadiisaba. waxaana munaasabadaasi ka qayb galay salaadiin iyo madax dhaqameed aad u tiro badan. waftigii nabadeynta uu horkacay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaana ergada madashaasi ka qayb galay lagu soo dhaweeyay soo dhaweyn maqaamkeedu sareeyo iyo caleemo qoyan oo dadka deegaankaasi ku qaabileen. waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay cuqaasha Chief Caaqilka caleemasaartay oo halkaasi ka cadeeyay kalsoonida buuxda ee xilkaasi ugu igmadeen. aniga ku hadlay afkii beesha Chief Caaqilka Ibrahim si mugle oo tashi ayaan ku soo dooranay beeshuna waa u dhantahay doorashadiisa waxyaalaha reerkan marka ilinkan la eego ilaa Axmed Cali Geedi waxay ahayn dad nabadda ku suntan cibaado leh aqligoodu wanaagsan yahay taladooduna tahay wada tash dadka ku soo maamula aanu nahay Beesha Bohod waxaan u sheegaynaa xukuumadda Somaliland ee uu madaxweyne ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo wasiiradiisa iyo waxgaradka iyo beelaha dariska dhamaan waxaan u sheegaynaa haddaanu nahay Beesha Bohod inaanu hayno nabad iyo amni buuxa ayaanu u sheegaynaa ugu bushaaraynaa muddo badan baa dagaal ka jiri oo beela ku dagaalamayeen waa laga heshiiyey waa laga nabday waa laga wada fadhiyaa maanta beeshii walaalaha iyaga markaan soo koobo idarays markaanu nahay Beesha Bohod nala heshiinaya amaanu haynayna maanta waa fadhidaa shirkana waa uga mahad celinaynaa. waxaana iyaguna halkaasi ka hadlay salaadiintii iyo cuqaasha caleemasaarkan ka soo qayb galay oo dhammaantood halkaasi ka jeediyay khudbado ku wajahan hambaliyo hoga tusaaleen iyo dardaaran. hambaliyo dhammaantii way ku soo dhaweynaynaa xafladana way ka mahad celinaynaa saad u soo ajiibteen. waxaan leeyahay insha Allah waxaan idin rajaynaynaa madax dhaqameedka dhammaan halka fadhida inaad insha Allah aad ku garab geli doontaan shaqada iyo waajibaadka la saaray kan aw aadan maanta marihii uu beeray nabadgelyada hadii la ku wada jirka ee deegaanka ma sha Allah way muuqataa inana waxaynu beeri doonaa tala dambe wanaagsan ugu soo duceeya. annaga farxad ahaan bay gaar noo tahay in awowgay dhunkaalu caleemasaarey Jaamac Faarax annaan maanta caleemasaarayo shilkii saddexaad ee Beesha Bohod waxaan leenahay waan la shaqaynaynaa dawladda iyo beesha dooratay chiefkana waxaanu leenahay halala shaqeeyo waan la wada shaqayno Beesha Bohod waa doorteen dadweynahana dhammaan wuxuu wada yahay chief iyo caaqil kun sultan nabadda ummaddu ku dhisantahay oo wax ku tahay waa beeshan aan halkan maanta Chief Caaqilka ku caleema saaraysa markaan magaciisa cadiweysnimo ama daraysnimo ku hadlayo waa meelihii dagaaladu iyo marka beebleeshiraantii ay noogu xumayd maanta noo koowaba intii colaadu ka dhacday yoomkan maanta noo koow waxaanu dadweynaha ka iibinaynaa oo u sheegaynaa nabadii inay sidaa ku hana qaaday ilaahay baana mahadda iska leh. waxaanu ugu ducaynaynaa chiefka Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax in ilaahay xilka u fududeeyo oo Bohod waxa leeyahay war Ibrahim xilka waa naqaanay waa nin wanaagsan oo maalmihii qaraadaya ogeedeen baan la soo shaqeynaa waa nin dulqaad leh ninka xoolayo la shaqeeya qoladan Ceelafin waxa leeyahay habar lamaana war intii nabadda maxaan ku rahday Bohod darees maxaan ku rahday ay ku heshiiyeen deganaayeen barroofka ugu dambeeyay ku barwaaqo goor sana ugu barwaaqo badan intii Axmed Faarax iyo Ali Jibriil Xasan abaar bayay marka waxaan laba diina Allah idin barakeeye ku siyaadkeeyo habar lamaantiina ahaado dhuxluxda bixiday habar iyo iska ilaaliya baanu abti baanu anagu ka baryayna inuu xilka loo dhiibay wuu soo hayay in badan buu soo hayay mirihiisii waa la arkay waa la soo gurtay waa ninka
nimaan la hubin hub looma dhiibo beesha bohood ee ku heshiisay jiif caaqilkoodii inay si wanaagsan u doortaan xafladan u qabtaan way ku mahadsan yihiin oo mahadnaqayna warin maadeerayaalow nabad nimankii halkan degan reer bariga reer Sanaaga halkan maanta waxay joogo nabadgelyada nafi ku jirta ee nabadgelyo doonta oo nabadgelyada xiga oo xafladan lama heleen haddaan nabadgelyo xigin rooy dalka nabadgelyo wax ku noqonaya dalka nabadgelyo ka shaqeeya war nabadgelyo ka shaqeeya war habar yoonis iyo habar jacatan waxay ku tarmaysaa habar lamaanay ilaasho wadankaaga anigu day waxaan ahay mudankii reer Shiixsaxaaq jiif caaqilka waxaan u rajaynaynaa xilka weyn ee loo igmaday in Allah u fudaydiyo oo Ilaahay u fudaydiyo inuu Ilaahay u fudaydiyo warkii hore waxa lagu dardaarmi jiray madax dhaqameedka gacan guran iyo muxuu ahaa iyo go'aan jilicsan iyo gareexo maanta waxaan kula dardaarmaynaa madax dhaqameedka war siyaasad baanu idin kala dardaarmaynaa siyaasadda waa inaa ka baxdaan madax dhaqameedku jiif caaqilka la doortay oo la dardaarmayo jiif caaqilka wax leeyahay anigu 6 jir baan ahay 2 sanadood baan mucaarad noqday 4 sanadood kalena maxaafid baan ahaa 2 sanadood macaan bay ku dhacay caaqilka waxa kula dardaarmaya war caaqilka taayiradiisu waa xukuumadda iyo dawladda iyada ku dhawow jiif caaqilka Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax oo maanta aynu halkan caleema saarkiisa u wada joogno oo si qiimo leh looga soo qayb galay oo si qiimo leh madashan loo qurxiyay ka soo jeeda qoys jiraban oo caan ah oo karaamo iyo ururin iyo sharaf iyo diin iyo dadwad leh ilaahay inuu hidda raaciyo oo reerkii uu ka soo jeeday noqdaan ilaahay uga baryayaa caaqilka la doortayna waxaanu leenahay karaamo wata karaamo annuna waa saaray waana kula shaqaynaynaa waa kuugu ducaynaynaa Allah kula qabto aad iyo aad u salaamaya dhaqanka ka yimi galbeedka iyana waxaan leeyahay nabadgelyada ay noogu yimaadeen in ilaahay inoo fududeeyo waxaan leenahay ilaahay ha inoo fududeeyo dadka ay nooga yimi dhulka fogfogna aan u dhaga jilcaano oo maqallo jiif caaqilka waxaan leeyahay qoys buu ka soo jeedaa dee madax ahaan jiray oo dabadeedna isna wuu shiraban yahay laakiin waxaan leenahay horta marka hore ducada koowaad waxa weeyaan ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaas ilaahay ha kuu fududeeyo labadii talabateeda toosan ilaahay ha ku garansiiyo gobolku wuu hadhay in badan baa colaadi haysatay meel badan buu ka dhibaataysan yahay si uga baxo nabadda u wada guntada caaqil jiif caaqil hore uu sii socdaan leenahay oo cadaalad iyo nabadgeliyo ku sii shaqee ilaahay waaxidala halkaan waxaan ka baryanaa inuu ilaahay taskhiir sida wanaagsan ee aakhira iyo adduunba liibaantu ku jirto ku waafajiyo ilaahay ku waafajiyo garbanaha loo noqdo oo halala shaqeeyo waxayaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha wasiirka wasaaradda ciyaaraha madaxweynaha Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo dhamaantood bogaadiyay jiifka la doortay waxa kale oo mas'uuliyiintu ku nuxnuxsadeen sida ay dadka deegaankaasi ugu suntan yihiin nabadda ka hana qaad deegaanada degmada Ceelafweyn jiifku ma cusbay shaqada weyn la soo hayay maanta laakiin ducadiisii baan u fadhinaa waxaanu leenahay ilaahay halkii aad ka haysay meel ka sii sarreysuna kugu gaarsiiyo harana waad u haysay maantana si rasmi ah buu kuugu soo wareegay intii hore aad haysay dhaliili kaama raacin maantana ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inuu kugu asturo oo aad noqoto imaamadii la wada harsanayay ee uu reerku wada raacsanaa inaad ilaahay kaa dhigo ayaanu kugu ducaynaynaa waxaa farxad weyn noo ah inaanu ka soo qayb galno maanta caleema saarka jiif caaqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax
farxad weyn way noo tahay caaqilka waxaan leeyahay ilaahay xilka lagu saaray ugu horeyn ha kuu fududeeyo ilaahay ha ka dhigo kii lagu barwaaqoobo lagu nabadoobo lagu nimcoobo caleemasaarku isku caleemasaar maaha kuwa inta meel cidla tagaan caana isku shuba kan waa caleemasaarkii la arki jiray la isku raacay la isku waafaqsanaa jiif caaqilka waxaan leeyahay qarnigan aan joogno amba duqeyntiga amba waayeelka anuu nin dhalinyaro baan ahay Soomaalo dhan waxa nabad lagu asteeyay Xaaji Cabduraabe Allah waxaad noqon doontaa Xaaji Cabduraabe ninkii bedelay haduu la yiraahdo shacab farax karaamu lahaa karaamadiisii ilaahay wuxuu ku soo wareejinayaa aw aadanna sidaas uu ahaa aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu ducaynayaa jiif caaqilka ducada mar labaad aan u ducaynayno waxa weeyaan jiif caaqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax oo isaga iyo waxa weeyaan dirkiis oo dhan aynu taariikhda ku hayno tala wanaagsan inay lahaayeen oo waxa weeye taamaantu ay marxaatu tahay ilaahay isagana wadada waalidkii uu maray adeer iyo awowyaalba ilaahay isagana ha mariyo daraato ayaa la sheegay in caaqil ay u tagayna meel saacad loo soconayo dabeedna aad baan u yaro weydiiyay caaqilku muxuu ahaa markaan si kale u garan waayay baan wuxuu igu yiri waa ninkii ariga waaweyn noo keeni jiray baabuurkiisa noogu soo qaadi jiray iyo geela dabeedna waxaan ku hadda waynu kala haynaa mar hadduu ninkaa yahay waynu kala haynaa saaka aniga iyo wasiirada halkan u soo horeynay geedka wax yimaada marka laga reebo dadkii deegaanka waxa weeye runtii waa caaqil ku suntanaa nin ku suntanaa nabadda deegaankan maantana loo caleema saaray inuu madaxdeeda ka mid noqdo ilaahay waxaynu uga baryaynaa wanaaggii hore uu lahaa alla inuu usii siyaadiyo xoolihii hore ee uu lahaana ilaahay u labanlaabo usii siyaadiyo taladana ilaahay waafajiyo caaqilka maanta la caleema saarayo waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo hogaamiye ehludiina ehlu khayr ah aqoon leh haga bulshada maanta loo caleema saaray halkan ammaan iyo mahadnaq iyo bogaadin uga soo jeedinayaa qoyska reer Jaamac Faarax Axmed caaqilnimadan muddo dheer soo hayay caaqilkii markaa uu maanta geeriyooday oo maanta si tala leh oo mug leh oo miisaan leh oo ay ka muuqato qoys soo talin jiray oo aan maanta halkan turxaani ka iman oo aan hadal ka iman oo aan caaqil la isku qabsan reer Jaamac Faaraxna waan u mahadnaqaynaa gabadhii waxa halkaasi ka hadlay jiifka lagu caleema saaray Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax oo dhankiisa halkaasi ka jeediyay duco iyo mahadnaq waxaana jiifka cusub ballan qaaday inuu awood saari doono nabadgelyada iyo walaalinta bulshada gobolka Sanaag koobaad ilaahay baan u noqoyaa mahadda labaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha Baha Faarax ee halkan ugu caleema mahadda xigta waxaan u mahadnaqayaa dawladda wasiirada ee halkan xilliga ay siiyay halkan yimi mahadda kale waxaan sii naqayaa boqorada suldaanada madax dhaqameedka dhammaan ergooyinka dhulka fog ka yimi ilaa Hargeysa ilaa Burco ilaa Cirgaabo ka yimi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahad dabadeed hadalkii waa la dhameeyay anigu halkan maanta ducadii waa lay duceeyay aniguna waa ducaynayaa kulli waxaan ku ballan qaadayaa in ilaahay cadaaladda ugu soo ilaahay ka baryaa ilaahay ugu soo duceeya waxaan ku ballan qaadayaa cadaaladda ka shaqeeyo nabadgelyada ka shaqeeyo maxamed suuti telefishinka qaranka Soomaaliland